Assalaamu calaykum. Waxaynu maanta baran doonaa qaar ka mid ah noocyada dadka. Dadka waxaynu u qaybin doonaa 3 nooc oo kala duwan. Qaybta koowaad waa dadka loo yaqaan optimistic. Optimistic waa dadka sida wanaagsan u fikira ama dadkan u naqaano positive thinkerska. Dadkana waa kuwa iyagu mar walba ka fikira waxyaabaha wanaagsan una fikira si wanaagsan. Dadka noocan sida wanaagsan u fikira waa kuwa iyagu haddii wax ay dhacaan markiiba qaata filashada wanaagsan si wanaagsanna u fikira wax walbana xagga wanaagsan ka eega. Nooca labaad aynu dadka u qaybin doonaa waa dadka nooca loo yaqaano pessimistic. Pessimistic waa dadka sida xun u fikira ama negative thinkerska aynu u naqaano. Dadkani waa kuwa iyagu mar walba dhanka xun wax ka eega ee negative-ka ah. Hadiiba ay wax dhacaan waxaa dadkan mar walba sareeya dhinaca xun waxaana ay ka fikirayeen waxyaalo xun iyaga oo sawiranaya waxyaabo aan wanaagsanayn. Sida awgeed ayaa dadkan loogu bixiyay dadka sida xun u fikira. Sidoo kale qaybta saddexaad ee dadka aynu qaadan doono waxa loo yaqaanaa materialist. Dadkani ma aha iyagu kuwa si xun u fikira amba kuwa si wanaagsan u fikira balse waxa ay yihiin kuwa kaliya ka fikira materialistka amba walxaha. Kuwa materialistka loo yaqaano waxa kaliya noloshooda awood ay saaraan waa in ay ka sheekeeyaan walxaha. Tusaale ahaan waxa la soo saaray kaba wanaagsan ama waxa la soo saaray saacad cusub iyo waxyaalaha la midka ah ayaa ay ka fikiraan. Noloshooda waxa awood saaraan in ay ka fikiraan walxaha. kuwaas ayaa loo yaqaan materialist. Haddaba waxaan kugula talinayaa in saddexda nooc ee dadka aynu soo sheegnay adigoo aad noqoto dadka sida wanaagsan u fikira ama dadka loo yaqaan optimist. wax walba oo noloshaada soo wajahana dhanka wanaagsan aad ka eegto ama dhinaca positive-ka ah ee fiican aad ka eegto adiga oo aan xumaan u arkayn amaba adiga oo markiiba aan ka fikirayn waxyaalo xun. sida awgeed noloshaada awood saar in mar walba dhinaca wanaagsan aad wax ka eegto adiga oo aan u fasilinayn wax walbana dhanka xumaatada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.